oo ah qaybtii xeeldheerayaasha waxaan doonayaa hadda inaan u yeero macallin Siciid Saalax Axmed macallinkayga saaxiibkay macallin Siciid Saalax waa bare sare oo ka tirsan jaamacadda University of Minnesota laakiin waa macallimiintii hore wax ka dhigi jiray jaamacadda Lafoole jaamacadda ummadda Soomaaliyeed wuxuu ka tirsanaa mas'uuliyiintii sare ee wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta wuxuu ahaa ninkii furay madaxna ka noqday ugu horreeyay qaybta barbaarinta wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta wuxuu ahaa aabihii kooxdii Iftin waa abwaan xeeldheere afka Soomaaliga iyo suugaanta waa riwaayad qore iyo isla markaana film qore wuxuu caan ku yahay filimkiisii Darwish sanadadii 80maadkii laga dhigay Soomaaliya wuxuu ka mid yahay aasaasiyaasha iyo guddiga sare ee akademiyad goboleedka afka Soomaaliga macallin Siciid soo dhawow waa qaybtaadii أحمد معلم سعيد وفر فضلا maanta xoogaa dhanka farsamada iyo culays naga haysta marka raali naga ahaada waa ku dadaalaynaa intii karaankeenna ah dhanka farsamada Axmed waxaan ka codsanayaa macallin Siciid inuu furo macallin Siciid Saalax magacaas macallin wuxuu noqday qayb ka mid ah magaciisa oo hadda waxa iska yar qof ugu yeera Siciid Saalax muddo 50 sano ka badan ayuu macallin yahay waxaan xusuustaa kal hore in magaalada London aan ugu qabanay barnaamij kuntum guuradiisii inta macallinimada uu ahaa marka magaca macallin wuxuu ka mid yahay waxyaabaha aan gurin haddii la yiraahdo madaxweyne iyo ambassador ayuu la mid yahay oo macallin mar walba qofka macallin wahanaya waa u jeedaa macallin Siciid soo dhawo macallin Siciid السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وهرين أبتدون أديك مهتسن وحا مانتا كالينتن بوغادين تيدا أن انت كتشرتا يبريدا أن أوهايو hogaanada mas'uuliyiinta halka iiga muuqday iyo saaxiibadayda aanu afkan iyo miidaankan aqooneed ee afafka ka wada shaqayno bariido iga guddooma iyo akademiyada aan ka tirsanahay waxaa run ah intii lagu kulmayey goobtan zoomka oo shirarkii la isarki jiray ay joogsadeen waynu xusuusanaa wuxuu bilaabmeen waa madashii saddexaad tii bishii 6aad oo lagaga hadlayey qoraahdii ahayd adeegsiga suugaaneed ee halgankii Soomaaliyeed iyo gobolnimadoonkii oo guddoomiye Maxamed Daahir Afrax uu soo jeediyey madashii labaad oo bishii Luulyo Julaay ahayd qoraalka ama dhigaalka af Soomaaliga lagaga hadlayey oo 5 qof aanu ku ahayn iyo ka badan intii ka soo wada qayb gashay maanta madasha tan aniga oo markii hore keli ku ahaa
waxaa ii sadbursiina ah in ay igula soo weheliyaan oo wehel iigu noqdeen mas-uuliyiinta aynu lagu soo marti qaaday oo igu wehelisa igula saaxiib ah ila qaybsanaya qaadaadhigga mawduuca waxaan ugu bogaadinayaa imaatinkooda ay igala soo qayb galaan oo aniga madashii aan ku magacownaa ii nasiib wanaaggaasa sida aad mawduuca ka muuqata oo aad aragtaan adeegsiga af soomaaliga ee xagga maamul iyo xagga ganacsi oo keliya maahe miidaan walba iyo mid uu yahay nolosha loogu adeegto af kuwa isku xidha oo u ah saldhigga waa mas-uuliyiinta hoggaan maamul waddan u haysa anigoo kuwaa maanta la hadli lahaa inaan toos ula helo halkii si dadban ay u sii mari lahayd ama ay mar dambe ogaan lahaayeen in ka midi ama anayba maqleen waa ii sadbursiino iyo ayaan wanaagsan inay igula qayb joogaan waxaana ka codsanayaa dhammaantood inta mawduucu inoo socdo oo macadadweynuhu uu ka qaybgelayo inay inoo goob joogaan oo inala dhegaystaan midna waan uga afeefanayaa saaxiibadayda mas-uuliyiinta ah ee saddexda mudane eenu ku soo dhoweynay waxaan uga afeefanayaa waxa aan sheegayno waa run dadka ay ka mid yihiin oo ay ku socoto haddii ay maanta mararka qaarkood la kulanto canaan mas-uul ama ereyo ama cod sare oo aan lagu dhawaaqo oo aan anigu idhaahdo iyaga ulama jeedo gaar ahaan laakiinse waa ku talagalka mawduucaygu inuu mas-uuliyiinta soomaaliyeed oo dhan iyo meelay joogaanba uu gaadho marka yaanay iga noqon saaxiibaday mas-uuliyiintu sagaaradii halgaada socota la kulantay haddaan maanta wax canaanto idinka maaha ee waa mid guud waxaan ka hadlayaa 3 tibaaxood buu hadalkaygu maanta u kala qarqooran yahay midi waa xusuus hore ee maamulka iyo ganacsiga iyo ku adeega afkanu sidii uu ahaa iyo siduu ku bilaabmay iyo siduu ahaan jiray midi waa xaaladda maanta taagan iyo tusaalaha aynu ka bixin doonno iyo sidaynu u arki doonno tibaaxda saddexaad waa mid xusuusta iyo xaaladda taagan oo tilmaanteeda leh xal u doon ah oo aynu ka wada tashanayno isu soo jeedinayno xaaladda noocaasa maxaynu ka yeelnaa sida loo bilaabayba haddaba intaasu waa iga erey furyo ee aan 3 tibaaxood u soo daadigo tibaaxda xusuuseed qof kasta qofka aadamiga ah ra-iisul wasaare mahdi baa ii tilmaamay oo ii saray ee waxa run ah sida uu u sheegay qofka aadamiga ahi hantidiisa koowaad oo uu noloshiisa ugu adeegtaa miidaan kasta ama badaha aqoonta iyo badaha nolosha mid kastay ahaato waa afka waxaynu ognahay oo la sheegaa bani aadamku xubnaha jidhkiisa tan ugu murug badan macnaheedu complexity-ga ay leedahay tan ugu layaab badan awoodda uu hayo tan uu bani aadam ku yahay tan uu noolaha kale gaar ahaan xayawaanka kaga duwan yahay waa maskaxdiisa maskaxdu
waa xubin aad u layaab badan baa la yidhi oo aanay cidina sugi karin awooddeeda bani aadamkan la siiyey in yar oo aad u yar oo dhibic eber hal ah ayuu kaga adeegtaa xubinta caynkaas ah ee dunida maamulkeeda ku baahsan ee maskaxda la yiraahdo marka la darsayo waxa qura ayaa ka tarjuma waxa ay dareento waxa ay u xadatooto waxa ka tarjumaa oo daaqadda maskaxda bani aadamka laga arkaa waa afka ay cabirto oo ku hadasho haddii aan la hadlayn ma aynu ogaaneen waxa qofku dareemay ma aynu ogaaneen marka qofku afkiisa koowaad ayuu ku dareemaa afkiisa koowaad ayuu ugu xadatoodaa bii'adda oo dareenka ku dhalisa afkiisa koowaad ayuu ku murugoodaa afkiisaa koowaad ayuu ku farxaa afkiisaa koowaad ayuu ku yidhaahdaa codka ka soo baxa oo saamaynta muujiya ayuu ku yidhaahdaa codka astaanta sumadda u noqda ee xarafka ayuu ku yidhaahdaa weedha uu ku hadlaayo oo wax gudbisa ayuu ku hadlaa maskaxdiisa weerta wada socota oo macnaha samaysa oo markaa adeegii nolosha adduunka uu ugu baahnaa uu mar walba ku cabbiro oo ku yidhaahdo markaa afkaa daaqadda ah oo uu qofku sidaa u ah maxaynu ka yeelnaa waa sida loo sheegaye afkaa innaga keennu waa afkaa soomaaliga ah oo waxqabad kasta ama bani aadamku falgalka uu adduunka la leeyahay luqadaa ayuu u maraa oo la'aanteed waxba ma qabsoomeen markaa afkaaga iyo hantidaadu haddii aad ganacsato tahay haddii aad qof maamul hoggaaneed haya tahay labadaasaynu maanta ku aadanahay iyo kii ogaanaya iyo kii baranaya iyo kii u noolaa adeegsiga afkeennu waa lagama maarmaan innaga af soomaaliga hantideenna ahi muxuu yahay marka hore waxyaaba uma bannaani oo waqti badan uma haysto waxaan ka bixiyaa hadalhayno iyo lagjaro gooniya mustuleedka ama backgroundka af soomaaligu iyo sida uu u yahay waana mid ka mida afafka aadmigu ku hadlo oo inoo ka soocan waa af asal ah afafka adduunka qaarna original weeye oo iyaga abuurma bii'addooda ayay ka samaysmaan kuwana afaf isu tegey ayay ka soo dhex baxaan oo markaa uu unugoodu noqdaa oo isku jir afaf hore u jiray kani kuwa yar oo takhtiga afafka adduunka cilmi baadhista aqooneed ee luqaduhu ay ku tilmaanto tusaalayaal badan baan ka hayaa ereygaa iskama oran haddase uma kashahayo waa af astaamo gaar ah leh oo la yaqaan oo afafka ka sooca ama dhawaqiisa ama yaanan astaamihiina dhex geline waa af abtirsiina rasmi ah oo la yaqaan oo afafkuu la wadaago iyo kuwuu xidhiidh kale la leeyahay ku noqday ahaa afafka da'da weyn ee afafku ka dhashaan ee hamatiga ku abtirsada hamatosomatiga noqda ee afka kushatiga ee ilbaxnimadii magacaa lahayd iyo waaga ay jirtay iyo fogaanteeda ku sii abtirsada kushatiga kala baxa waa af kushatiga bari ku sii tilmaan leh la wadaaga afafka oromada iyo cafarta iyo saaho iyo beeja inta badana la xuso
mararna kuwo kale lagu soo daro laakiinse luqadyahanadu ay afartaa kushatiga bari markuu sii togona lagu tilmaamo in uu af soomaaliga somaloid u yahay oo af soomaali noqdo afka tilmaantaa leh waxaynu ognahay ama dadkaygu aanay wada ogeyn inuu af aad u da'weyn yahay raadkiisa lagu arki karo ilbaxnimooyin hore iyo raadad hore waxaa raadadka af soomaaliga hadda laga daalacdaa afafkii hore ee masartii hore ayaa la yidhi oo dad badani ka markhaanti furaan masartii hore afaf kala horeeya ayaa lagaga hadli jiray sida koysaanka iyo kobtiga haddaba taalooyinka loo daawasho tago ee dhulka masar ku yaalla masartii hore ah ee ahraamta iyo kuwa la mida faraha ku xardhan ee helografiyada ee la yaqaan ee la arkay ee macnaha sheegaya intee erey oo af soomaali ah ayaa laga akhriyey ama marka laysu eego sawirka iyo waxa u taagan xuruuftii markii la bartay u ekaaday in uu yahay hadal af soomaaliya oo dadkii tarjumay qaaray khaldeen dadka af soomaaliga ku hadla ay saxeen marka sawirka loo eego oo halkaa joogaya ma ila wadaagtaan haddii aan idinla wadaago ii sheega inaad ila aragtaan sawirkaasi ma idiin muuqda oo boy aan soo sheergareeyey ii dhawaaq abtidoon sawirkaa waa la arkaa gudoomiye mudane siciid saalax mahadsan sawirkaasi waad u jeedaa layskuma hayo inuu taalooyinka aan sheegayay iyo sawirada masartii hore lagu garto boqor walba oo ka mid ah ama ilaahyadii ay caabudi jireen faka nacuudu billaahi iyagu waxa uu sitaa waa ul gadh leh oo faraadh leh oo mar walba haddii aad baadho Egyptian pharaohs isaga oo astaanta rasmiga ah labada gacmood oo isweydaarsan midna waxyaamba u eeg sida sawirkaa midna ushaa iyada ah ku haya ushaa markaa xuruufta ku hoos qoran la eego oo la akhriyey waxay noqdeen waynu wada ognahay dad badan oo saaxiibaday ahayd ha ga'na la ayaa ushaa ay ku magacaabeen ha ga'na la waxa keenay helografiyada hore xuruufta shibanayaasha maaha ma lahaan jirin shaqallo ha ga'na la ayaan maanta anigu usha sidaa u eg ugu yeedhaa oo magaceedu uu inoo yahay oo hangool ah oo waagaana loo yiqiinay ka soo tag marka aad eegto qofafka dhulkii uduga ee land of bunt boqortooyada la soo xidhiidhee la hubo ee boqoraddii qurahayd ee waagaa ee xadbasuud ma rabo inaan taariikhdaa ku dheeraade ee maraakiibteedu ay walaxyada hadda la hayo ka qaadeen dhulkaa dadka ay u timi ama waagaa loo yimi afka kanay ku hadlayeen waana 3,000 oo sannadood dhalashadii nebi ciise ka hor afkii baa weli nool oo jira ayaynu isleenahay
hangool oo qura maaha ilaa 200 oo erey oo isku mid ah ayaa meelo laga akhriyey dadka sii togay uma jeedo ushaasi hangool oo qura maaha xagga diintana inay dariiqooyinku mid dheer oo faraadle oo ay qaataan oo saalimow la yidhaahdo waynu ognahay saalimowgu xaggee buu xadatada diineed uga yimi waxa ay u tahay isla meesha marka ul iyo masar la soo qaado waa inaad xusuusataa casaa muusa weeye meesha laga diinaynaya oo loo haystaa waxaa laga helaa matxafka istanbuul ku yaalla ushii waana taa halkaa ku sawiran oo oo hangoolka ah qofka soomaaliyeedna uu sida goonnida ah u ciseeyo oo guri buu abuuraa marka barbaartu isguursato wiilka ee guursada raacatadu waxay u keentaa hadiyad hangool ah si guriga uu abuuray uu ugu wado oo ugu dhiso oo loo arko markaas ayuu yidhaahdaa sidaasay malaa ummadooda ay ugu abuuri jireen hangoolka oo ay u ahayd waxaa run ah afka kan iyo da'diisa kuu tilmaamaya oo aad ku arkaysaa haddaan idinla wadaago mid kale odhanaysa waa qoraal aniga oo dhiganaya ama daraasaynaya taariikhda afka ingiriisiga ayaan la kulmay buuggii aan ka dhiganayay koorska boggiisa 56 waxaa ku qornaa bog aan hadda halka yaanan waxba ku daalin soo saaridiisa sheegaya oo akhriyaya in ay jiraan afafka hamatiga iyo samatiga inuu jiro af u dhaxayo bridge u ah oo afafka hore ah oo dhalay luqooyinka da'da weyn ee hamatiga ah ee weli nool buu yidhi qoraagaa la yidhaahdo barber jarles waa Cambridge University kuwaa nool oo afafka kushatiga ama hamatiga ah oo jira oo weli lagu hadlo waxaa lagaga hadlaa waqooyiga Afrika meelo ka mida waxaana ku jira afka Soomaaliga kelmadda ereyga luqada afka Soomaaliga oo abtirsiinta loo yeelay oo xitaa kuwii kaloo kushatiga oo la bahda ahaa gooni looga soo saaray ayaan boggaa kala kulmay baaragraafkaasaan sitaa oo meel walba la maraa taariikh maanta ma ahayn ka filashadaydu inaan idinkala hadlo taariikhda afka waxaan u jeedaa waxaan ii geeyey qofka Soomaaliyeedu afka da'daa leh afka astaantaa leh afka muuqaalkaa leh afka mudnaantaa leh afka laandheernimadaa leh haddaad laandheere og tahay uu jiro ayaad haysataa ma mudna wax la yaso iyo sida aynaan u ogeyn oo aynu u nacno af Soomaaliga waa af ayaan badan markaad si u eegto ma og tahay afafka dunida lagaga hadlo oo dhammi waxay ku dhow yihiin 7,000 oo af baa aadmigu ku adeegtaa inta la og yahay mar walba kuwa cusub baa la helaa dhul kuwana waa dhintaan oo waa ka baxaan 7,000 dhowr xabbo ayaa ka dhiman afafka lagu hadlo afafka lagu hadlo oo 7,000 ah
3,982 af baa ka qoran, kuwaasuu ka mid yahay qoraalka yeeshay. inta kale oo aad u jeedo 4,000 ku dhowaad 3,000 oo kale iyo dheeraadku weli maba qorna. markaa qoraal af uu far yeesho wakhtiga uu af soomaaligu ka soo baxay garan maynee. haddaynu kan 1972 tirsanno, inuu ayaankaa ku leeyahay waad u garan kartaa. tirooyinka afafka adduunka lagaga hadlo 5 baa ugu dad badan ka soo bood. afkeennu marka dadyowga loo eego hadhayalsan. bani aadamka tiradaa leh iyo afafka tiradaa leh 50ka koowaad ayuu ku jiraa. afafka iyaga ah 2,000 oo af oo ka mida dad aan 1,000 qof ka badnayn baa ku hadla. afafka tirada leh awooddan elektroniga oo aynu inagu teena dhayiloo nidhaahno si xun baa loo qoray oo adeegsata oo ku faafta 2,000 oo af quraa ka faa'iidaysta oo uu ka mid yahay. afrika afafka ku hadla waa 2,100 baa la yidhi ku dhowaad. 2,100kaa marka la kala eego afaf intaasoo dal oo kala duwan ama dhowr xuduuda ka tallaaba waa 41 af. 41kuu ka mid noqday. af qoran oo hab waxbarasho gala oo la dhigo oo maamul dowladeed ku meel maray afrika oo dhan waa 12 qura. 12kii buu ka mid noqday. afka ayaankaa leh ee soo gaadhay wuxuu ku mutaystay marka ereygiisii oraahda ahaa uu qormay 1972 ayaa markii lagu dhawaaqay labadan mawduuc siduu ku soo maray, siduu maamul 3 olole maalintii horena waan xusaye ugu soo maray. waxa ugu horreeyey in lagu hirgeliyo maamulkii markaa dhulka soomaaliyeed meeshii lagaga dhawaaqay maalintaa in maamul lagu hirgeliyo. sidee loogu hirgeliyey? shaqaalaha dowladda waxa la siiyey 3 bilood in ay af soomaaliga inaad af soomaaliga lagu barto 3daa bilood. dadka dowladda u shaqeeya imtixaan ku galaan. imtixaankaa qofkii gudbi waaye shaqada lagaga eriyo oo dhacday oo lagaga eriyey oo sidaa xooggaa ku bilaabmay in uu rumeeyo haddaanu qofku higaadiisa ilaa waa ku hadli jiray iyo qoraalkiisa 3daa bilood ku badan. qosollo baa ka soo maray iyo dhibaato adag. axmed maxamed qaadi oo magaalo weyn oo magaalooyinka soomaaliyeed dadkii imtixaanka ka soo qaadayey horjooge uu ahaa ayaa filim aan ka sameeyey hirgelinta farta. wuxuu kaga sheekeeyaa axmed maxamed macallin buu ahaaye welina waa naag joogaaye. markii uu magaaladaa weyn tegey oo uu imtixaankii shaqaalaha loo fadhiisanayey ayaa dowladda hoose oo magaalada xoghayaheedii gurmad ugu yimi oo wuxuu u sheegay oo wuxuu yidhi dadka dowladda hoose ka shaqeeya gaar ahaan qaybta nadaafaddu afkanaad sheegteen intii waa ka mashquulsanaayeen oo ma baran mana qoraan. haddii shaqada laga eryona magaaladu cudur baa ka dilaacaya oo waa qurmaysaa. iyadoo yaaban ayaa wafti dowladdii waaga golihii sare oo kacaanka oo meesha jooga ayay ula ergadeen in ay xal loo helo. qaadi wuxuu yidhi cabdalla faadil wuxuu u sheegay oo yidhi bal waxaad yeeshaan si imtixaankana loo qaado
magaaladuna aanay u qudhmin qolooyinka imtixaanka u basariya oo uga qaada. waa kaftannada naga soo mari jiray oo laga sheekeeyo. afkii sidaa loo qoray, wasaarad walba iyo hay-ad walba waxaa loo yeelay ereyo iyo erey bixin ay ku dhaqanto si ay isu afgartaan oo ay hawsheeda ugu fuliso. weliba markii dambe, haddii markii hore ku dhawaaqidii afka lagaga degdegay. waxaa ka horreeyey oo hay-ad iyadu xilliga qoraalka ka horba waa ila taqaaniin ku dhaqantay maamul ahaan afka. waa wasaaradda difaaca iyo xooggii dalka ee waagaa jiray ee iyagu u adeegsaday afka dani ku kaliftay inay mar hore u adeegsadaan in ay yeelaan oo isticmaalaan unugyadooda iyo tiradoodu inta ay la-eg tahay si ay sirta difaacooda iyo hawshooda ugu qarsadaan. waa wada taqaanin. tusaalaha geli maayo xogtooda ku dhowran inay unugga iyo goosanka iyo gaaska iyo guutada iyo derajooyinka dablaha iyo aliflaha iyo maxaylaba aliflaha iyo kormeeraha iyo xadhiglaha iyo gaashaanlaha iyo gaashaanle dhexega iyo ay ku soo maamul jireen, ku soo dhaqmi jireen iyo wixii la mida intooda kale ma aynu ogaan oo waa sirta ay qarsanayeen. welina malaa u qarsoone. hay-adaha shacbiga iyaguna sidaa ayay marka dambe ugu tixgaleen, ugu hirgaleen. maye waa wax hadda lala yahay isticmaalkii heerarka maamul iyo ee kala ahaa xubinta iyo laanta iyo waaxda iyo agaasinka guud ee lahaa horjoogaha iyo maamulaha iyo madaxa qaybta iyo agaasimaha iyo isuduwaha iyo ilaa wasiirka ama xoghayaha hogaamiya marba erey buu ahaaye. maye oo yeeshay ereyadii maamul oo sidaa ahaa xaggee waa inay kuu dhadhamaa oo aad u garataa. layskama oran oo ereyga baan ka saxayaa tarjumaadda erey bixinta tarjumaad inooma aha ee dhaqankeen iyo nolosheenna ma u taqaan in marka la agaasimayo baleeg macnaha ay ku siinayso oo haddii aad ka tagto ereygaa aad luminayso. marka xoolaha ooda laga qaado ayuu agaasin ka yimi oo la sii daayo subaxa hore. haddii aad aragto carruurta ama qofka da'da yaroo raacaya, qof baa sii raaca oo la dhoweeya aan la soo daajinayn. qofkaasi wuxuu u sheegaa meelaha uu soo marinayo, inta qaboonada hore, marka dambe meesha uu soo daadejinayo, galabtii sida uu u soo rogaalinayo, waxa uu ka ilaalinayo. waxaa la yidhaahdaa wuu la sii agaasimay. meesinkii xoolaad ayuu qofkii da'da yaraa la agaasimaya. haddii hay-adaha maareeye loo yeelay, maarayntu ma ogtahay maamulka dhadhanka ay leedahay. qof aan buuraley ku dhaqmin oo buuraley ahayni ma dhadhabin karo. layskama oran marka hore ereyga salkiisu waa maaray. waxa la maareeyo waxa ugu macno weyn awr raran oo buuxa oo buur ka baxaya oo jidku cidhiidh yahay oo uu warwareego sida uu meel uga laabto oo haddana mid kale u qabsado oo uu u wareego oo uu jidkaa cidhiidhigaa culayska ula maro oo markay ku kalifto inuu labada adinoo hore dhigto geedka hortiisa ah laanta ah ilkaha ku qabsado oo uu ku kaco ayaa la oran jiray awrkaasi maarayntuu yaqaan. markaasay ka soo duxdaa
oraahda la yidhaahdo waxaa waa loo maara waayey oo si loo basariyo oo leexleexiyo ka soco oo u garo سعيد وقتك عريري وسين نقونا إن شاء الله عشر كذا أنا بيجي بقولنا يو شن دقيقة كذا ياكم معري لهيد أبي قولي inaan marka hore kaa afeefto bay ahayd in aniga xiisadaydu 2 saacadood iyo 5 daqiiqo tahay oo aan badanaa intaa wax dhigo intaana ku hadlo raalli ahow waan ku yeelay xidhiidhiya waxaan uga tegayaayoo ina dhadhansiinayaa aan u boodo afkii adeega ereyadaasi lahaa afkii loo yeelay marka bulsho meel isugu timaado magaalo oo qura sawtii aynu doonnay inaynu dadka kan magaalada degay u yeelo warqadda dhalashada oo kaartinaashataa ilownay termkii ahaa sawteennu u yeelay oo u dejinnay maamul ahaan warqadda sugnaanta oo aynu ilownay ereygii authentizione sawteennu u dejinnay warqadda aqoonsiga oo aynu ilownay id iyo teesaro iyo katabuliisho iyo mustawaqa iyo ay tahay inaynaan ku noqon sawtii aynu sugnaan ay macnaha kuu sheegtay qofka kan in la tiriyo inuu sugan yahay oo magaalada xaq ugu yeesho qorshaha biyaha iyo caafimaadka iyo xitaa hawada uu sanka ka qaadanayo maamulkii sidaa loo dejiyey sawtii ganacsiga uu lahaa oo hay-ad weliba ay isticmaashay af soomaaliga u dhadhama oo xagga dhaqaale iyo xagga tan guud iyo tan gaar ee miisaaniyadda loo dejay ee madaxyada tirsiga loo yeelay sawtii dowladdu lahayd shaqaalaha ballaadhan ee mushaharka qaata ee gunnadu u weheliso ee habeendhaxa ku shaqeeya ee abaalmarinta hela sawtii ay kala soocnaayeen bangiyada magacyada leh oo kala heerarka iyo mid weliba dokumentiga uu ku dhaqmo sawtii shirikaduhu ku bilaabmi jireen hal abuurka ganacsi ee leh hilin iyo muuqaal sawtii lagu hilaadin jiray meerta nololeedka shirkadda sawtii raasamaalka lagu bilaabi jiray sawtii kobca dhaqaale la raad guri jiray sawtii istaraatiijiyadda raasamaaleed loo dhiraandhirin jiray sawtii sicir goynta lagu ilaalin jiray sawtii sicir bararka laga dhowri jiray sawtii dulsaarku ka reebnaa ereybixinta aynu isticmaalaynaan uga jeedaaye sawtii suuqgeynta iyo dheef korodhka iyo inta ay ku adeegato ereyo meel mar a ahaa meeshii lagu soo maray afku uu noqday af aqooneed af loogu adeegto nolosha ganacsiga nolosha maamulka nolosha caafimaadka oo kuwa dambe adeegsigooda aynu marar dambe ka hadlayno aan u soo dego tibaaxda ah xaaladda maanta taagan annagu dadka af soomaaliga ka shaqeeya iyo marka aanu eegno xaaladda maanta taagan waa mid xanuun badan oo leh ku noqon maayo markaa aafada ku dhacday afkii kobcayay oo korayay wixii helay waynu ognahay iyo wadammadu waa iswada saameeyeen dagaal 2 dal ay wada galeen intii degaanada ku dhow oo dhan waa saameeyeen dagaalka sokeeye iyo qaxiduna wadammada af soomaaliga oo dhan way saameeyeen afkii meeshuu ka korayey inay degtay layskuma hayo adeegiisii maamul wuxuu marayaa maanta in la hafro
sidii ra'iisul wasaaruhu inoo sheegayey waa la arkaa oo dhammaan iyagoo ku kala duwan oo waanu dhex marnaa maamulada jira ee kala qoqoban mid walba siduu ugu dhaqmo in badani dastuur bay ku qoran tahay xeer dalka u yaallabaa waxau tilmaamaa inuu afka rasmiga a yahay laakiin dhaqangelinta waxaa la arkaa xafiisyo dowladeed oo ku wada xidhiidhaya af kale oo af qalaad ah ayaa la arkaa waxaa la arkay sidaasoo kale wareegto madaxweyne faraya in afka soomaaliga lagu dhaqmo laakiin wareegtada uu soo saaray ee af ingiriisi ku qornayd madaxdu afka waa run oo waa qoraalka iyo waraaqaha waa ka muuqdaa meelo badan dowlad degaanka soomaaliyeed etoobiya meelo qaarkood waxyaabo ayaanu hirgelinta iyo dhaqangelinta af soomaaliga ku ammaanaa xagga barashada ilaa heer jaamacadeed halka uu ka gaadhay iyo ku maamulka oo aan weli barashadiisiise dugsiyada caadiga ah uu meel kale sii wiiqmay marka sababo marka waxbarashada laga hadlaayo la muujin doono muwaadinkii aqoonsigiisa iyo magiciisa waxaan u boodayaa xaaladaha xanuunka leh oo yaalla waxaa xilli dhexdaas ahaa oo dhowr sano ayaa la yidhi magaalo madaxdii muqdisho teesaradii waa warqaddii aqoonsiga ayaa la soo celinayaa waxaanu baraha bulshada ka akhrinay iyo doodo ka taagan magaca soomaaliga ha lagu isbeeliyo oo ha lagu higaadiyo magacanyada ali oo layscarab tirayo la qorayo ali iyo abdiraxmaan iyo ahmed ha la qoro naxdinta noogu darayd annagu dadkaasi wixii afka la xidhiidho meel ka dhacaba waa u soconnaa dadka mindida daabkeeda hayana waanu ula tagnaa waanuna uga dacwoonnaa halkanaan joogo ayaa wafdi baarlimaan ahi soo maray markaasaan intaan cidka haystay isiri ka hadla oo fariin faro waxaad tidhaahdaan war magacaygu sida uu u qormo markii isticmaarku joogay ayuu wiiqmay oo lay carab tiray oo si aanan u oran oo isaga afkiisa isticmaarka ah oo magacaygii jaamac kii faransiisku da ka bilaabay daja ka bilaabay kii talyaaniguna ch ka bilaabay kii ingiriiskuna je ka bilaabay oo 3 iyo 4 jaamac oo kala duwan aan yeeshay oo kala qoran oo magacii uu iga wiiqmay markii farsoomaalida la qoray miyaynaan ogeyn afrax baa qoraalla ku muujiyey warqaaddii qoraalkii macallin guush uu androviski adduunka iyo laybareeriyada u qoray oo uu yidhi dadkaasi afkooda laba waxba magacoodu last name iyo surname ma leh ee waa magac saddexan ama afaran oo wada socda fartoodana waa in magacyadoodii loogu isbeeliyaa ummadaha adduunka qofka jabaniiska ama shiinaha ahi aqsan iyo yuusheerigiisa agastii buu ka bilaabaa uma bedelin inuu afka reer yurub higaadiisa la doonto marka waxaan gaadhay anoo ku ciil qaba oo ku farxa marka sponsorka ay dibadda ku imanayaan dadka soomaaliyeed qaar khaldamay in gabadh nimco loogu yeedhayo ama sakiido ama kali aan ku qabsado yidhaahdo sidaa looma yidhaahdee cali iyo nimco iyo saciido deh si uu iigu meel maro ayaa iminka isweydiinta maamuladaydu ama aad documentiska aan halka ku hayo ay ku taagan tahay waan idin wada tusi lahaa waa tii xagga waqtiga laygala dardaarmay
goobjoogayaashayda magaalooyinka idinla jooga waxay maalmaha kan iigu soo tabaruceen sida inta bidaaqadood xawilaaduhu sida ay warqadooda u qoreen magaalooyinka sidaynu ognahay ganacsigooda tabeelle oo aanay cidi ka sixin magacaygii oo higaadiisu qaldanayd in haddana lagu sii waaro tolow afkeebay ku qoran tahay warqadda aqoonsi ee maamuladeenna qaar af soomaali lagu higaadiyo waan hayaa qaar baarlimaankii aan u tegey oo aan lahaa af soomaaliga warqadda aqoonsiga dowladda hoose ha lagu higaadiyo ayaan warqaddiisii aqoonsiga eegay oo uu markaas sitay qof ka midii mise iyada ayaaba ku qoran af ingiriisi ama afafka kale hoos ha loogu daadego yaan dastuurka sida ku qoran ama wareegtada lagu amro aan ahayn wuu qatan yahay shaqaa lagu bixiyey wuxuu iminka goobjoogga saldhigga akademiyada ii soo dirayey ilaahay mustafe ha ka sawaabee ogeysiintii shaqo bixinta oo ay ku qoran tahay arjiga waa in lagu soo qortaa af ingiriisi marka af soomaaligii shaqo waa loo diiday waraaqo documentiska dowladeed oo maamulada qaar ka bilaabma republic of national maxay kaadhka sideer ma idiinsii wada dhexgelaye waxaan uga jeedaa waxaan hubaa su-aalaha inay noocaas u badan doonaan oo dadka badanaa lagu oranayo cabdi waan ku yeelay waxaan u doodayaa tusaalahaasi ilaahay ha ka keeno su-aalaha tibaaxda saddexaad ee xal u doonista xanuun kale waxaan ku soo koobayaa waa sidii mas-uulkii mudane mahdi maxamed uu u sheegay ra-iisul wasaaruhu ee ah waxaan la isugu tegin waxa la yidhi waxaa la qoraa oo la sheegaa oo la tibaaxaa u halgan qaran ama ummad si loo hormariyo kuma hormarto af kale haddaanay afkeeda adeegsan ummadaha mid walba intuu afafkii isticmaalka dhigay markuu kiisa meel walba ku adeegsaday buu horumarin gaadhaa ummadina kuma socoto oo dadku waxa uu ku yidhaahdo afkiisa oo uu fahmo ayuu gartaa waxaa la yidhi qof qura oo wax walba hogaamiya oo ka shaqeeya ma jiro dadku markuu howlqaybtan yeesho oo cidiba kaalinta ceelka waa tii ereygii ceelka la xidhiidhay ee meesha biyaha laga soo dhurayo laga soo qabanayo oo darka weelka biyood oo ceelka agtiisa oo darka a yaalla oo yeelka la yidhaahdo oo daryeel ka samaysmay marka kaalin uu yaqaan sida culimada dowlad abuurku ay sheegeen ninba fartiisa hadduu ka shaqeeyo oo ka soo baxo oo kan beerta yaqaan iyo kan xoolaha yaqaan iyo kan dhaqaalaha yaqaan iyo kan afyahanka ah iyo kan xeeldheeraha aqoon kale ah midba aanu tan kale u gudbin oo ummad wada siyaasiya anan la noqon waxaa la meel marin kari lahaa markaa annagu haddaba dadkan la sheegaya ee akademiyada tan iyo iyadoo qura maaha ee maamullo badan oo afka iyo aqoonta iyo qoraalka iyo hay-adaha u jira waa yagleelay weelkii saabkii wax lagu qaban lahaa waa yagleelay oo samaynay qaanuunkii iyo xeer hoosaadyadii loo mari lahaa waxqabadka waa yagleelay oo waa u go'doonnay afkan in aanu noqonno tabliiqa af soomaaliga u joogtada ah
iyo dhaqanka iyo hiddaha iyo cilmi baadhista kuwuu guddoomiyuhu soo tiriyey oo aanan ku xeernayn malihi akademiyada oo qura ah waxay xidhiidhisaa dadyowga badan oo goobo maamuleedka kala duwan jooga oo yaalla in wax mideeya oo afkii saldhig u noqda haddii la yagleelay haddii daddan kasta uga tageen oo tabliiqaasi ay u noqdeen waxay u baahdeen afkii howlwadeenno loo yeelay saldhig meelmar ah ama saldhigyo badan waxaa la yidhi sal aan fadhiini hee suuf ma jiido haddii alindiga malaha ay ka timi marka uu fadhiyo godka ku jiro haddaanu salkaa u fadhiyin marada samayskeeda suufkaasi ma jiidmaayo hadduu afku wareego haddii inta waxa lagu bidayo qofba adduunka goob uu u qaxay ku xidhnaado haddii aan fulintii laysula iman haddii aan agabkii loo helin haddii aan dhaqaalihii loo helin haddii aanu siyaasigu ka mid noqon haddii aanu hoggaanka ganacsi ka ganacsan oo isagu maalgelin haddii aanu ku kalifin sharikadda dabadeed waa siduu ra-iisul wasaaruhu sheegaye waxa uu ka soo iibsanayo inuu af soomaali iigu soo qoro oo marka aan halka maraykan dhex joogo waxay igu kala jiitaan in sharikadda tabeelaha weyn af soomaali ku qorta oo magacooda ayaa dadka yaga yar oo tirada yar si ay macaashkooda u helaan lagu qaataa aniguna mid afaf kale ku jiraan oo aanan akhriyi karin oo aanan garan warqadda saldhigga korontada iga iibiya uu ii keenay baan waxaan hayaa oo uu ku qoran yahay af ingiriisi islaantii baa guriga loogu keenayoo customer iyo signature iyo maaragtay waatiska iyo laakiin waxaa af soomaali qura ah inuu garanayo digniinta oo ah haddaad bixin weydo laydhka waa lagaa jaraya intaasa af soomaali lagaga dhigay si aanay lacagta ula habsaamin laakiinse ma garansiin wixii kale oo dhan qofka ganacsigu ma gartay in carruurta dugsiyada loo furtay oo loo samaystay in buuggoodu ganacsi noqon karo oo la maalgelin karo inkan wax qora wuxuu af soomaaligii hadduu yeeshay tabliiqa aan idiin sheegay wuxuu u baahday saaxiibada af soomaaliga ee hoggaanka siyaasadeed maruu joogo iyo mar kaleba waxaanu ku celcelinaa hal saaxiib siyaasadeed ee af soomaaligu yeeshay ku celin maayee waxaanu maanta idinku martinahay in loo abuuro saaxiibo in afarta waddan oo loo aqoonsaday oo la carabaabay oo qaar afaf kale lagaga dhaqmo oo cidhiidhigooda aanu ognahay ee ah afkii dalkii soomaaliyeed soomaaliya la orani jiray dalka jabuuti iyo dalka dowlad deegaanka soomaaliyeed ee etoobiya iyo kenya kan shanaad ma u malaynaysaa intaa goobaha laga doodayaa midkii shanaad waa naloo diiday oo tanzania ah waxaa la yiri indigenous af soomaaligu kuma aha dad sheegta in af soomaaliga dhulka soomaaliyeed af oromo lagaga hadlona waa loo diidaa dagaaladaasaa socda ha isu yeedho boodaantu oo afarta beynijaho ee afkanu ku dhaqmayo haddii aan koorta laga wada yeedhin codadku isu iman heer walba qofka ahi aqoon-yahan oo qura iyo waa ku xeel dheere wax kama tari kale anuu afku siyaasigiisa helin hogaamineed anuu afku ganacsigiisa hogaamiye helin anuu afku qoraagiisa anu helin inuu afku miidaanka kan beerta iyo kan xoolaha iyo kan macdanta iyo kan biyaha erey bixintooda ku soo ururiya oo isu keena aanu helin ma hirgelayo igaga raalli ahaada
waan ku jiboodaa oraahda af Soomaaliga boodaantuna weli waan yeedhinayaa iyo caleenka meel kastaan la maroba waa mahadsantihiin aad iyo aad u mahadsan tahay macallin Saciid Saalax magacaas raacay macallinimada mar la yiri